khamiistii la soo dhaafay Turkiga iyo Suudaan waxay kala saxiixdeen 6 heshiis iskaashi oo dhinacyo badan taabanayo. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan uu kula kulmay gudoomiyaha golaha sare ee Suudaan Abdulfatah al-Burhan xarunta madaxtooyada Turkiga ee caasimadda Ankara. Heshiis afgarada oo ku saabsan iskaashiga dhinaca tamarta iyo heshiiska iskaashiga dhinaca batroolka ay labada dawladood kala saxiixdeen. sidoo kale heshiis iskaashi maaliyadeed iyo mid dhaqaale ay kala saxiixdeen wasaaradda maaliyadda Turkiga iyo dhigada Jamhuuriyadda Suudaan. isla sidaasi la mid ah heshiis iskaashi maaliyadeed oo militari iyo habmaamuus lagu hirgelinayay kaalmada dhaqaale ay kala saxiixdeen dawladaha labada dal. wakaaladda Anadolu ee Turkiga iyo wakaaladda wararka Suudaan Suna ayaa kala saxiixday heshiis dib loogu cusboonaysiinayo wada shaqayntii ka dhaxaysay. dhanka kale madaxa golaha sare ee Suudaan Abdulfatah al-Burhan ayaa muujiyay kalsoonidiisa ku aadan suurtagalnimada in mugga ganacsiga Turkiga kala dhaxeeya la gaarsiiyo $2 bilyan. hadalkan ayuu ku sheegay khudbadiisii intuu socday kulan wada tashi ah oo uu ku heliyay madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Fuad Oktay iyo ganacsatada Turkiga. al-Burhan ayaa tilmaamay in Suudaan ay marayso marxalad kala guur ah si ay u gaarto booska ay ka mudan tahay dalalka dunida ee hormaray. waxa uu carabka ku adkeeyay in dalkiisu uu gaari doono maqaamka uu ka mudan yahay nidaamka caalamiga iyo qaramada midoobay. waxauna u mahadceliyay taageerada uu Turkigu siiyo dalkiisa ee dhinacyo badan taabanayso.